Good luck. Hello, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Umar Sharif, Khadija Hassan Ma'lin. Bring them on camera. Assalamu alaikum. Kulligin waa salamantihiin. Jikatore, Wiil Daarood, Janagale, waa salaamantahay. Faska Ali, waa salaamantahay. Kulligin shargareeya kulliba waa isugaysan idinma dhahayo kulligayna waa isugaynay. Abdullaahi Cali waa yahay Yaxya Waasak waa ku salaamay. Amiir Marcad sidoo kale dhammaantiin waa idin salaamay. Marka insha Allah biidnillaahi kariim. Maryan Sheekh Nuur Cali adigna waa ku salaamay. wixii xamaduga oo maanta khaasatan si khaas ah waxaan uga hadli doonaa Somali Bantu ayaa mowduuca maanta iska leh. Inta walaal Somali Bantuna u jirnahayso oo dhibaatada Somali Bantu ay ka danqanayso ayagana way soo geli karaan. waa inta Faysal Jacaylo ina geedo waa salaaman tahay. marka alxamdulillah rabbil aalamiin kulligiina waa salaamantiin insha Allah biidnillaahi kariim. insha Allah biidnillaahi kariim kulligiin waa idin salaamay kulli basoo qabashada way dhiman tahay. kulli mowduuca wuxuu ahaaba kama hadlin macnaha qoraal ahaana waa u soo dhigay laakiinse haddana Sulaymaan Hussein waa salaaman tahay. iga qaad baldaahyada Sulaymaan Hussein waa salaaman tahay. alxamdulillah rabbil aalamiin. marka Allah qofkii kulliba maanta ujeedada aan ka hadli doono waxaa khaas u leh Maxamed Cumar waa salaaman tahay. waxaa khaas u leh qowmiyadda la yiraahdo Somali Bantu iyo inta u jirnaxda Somali Bantu. waayo annaga dawlad kasta way dhalataa way degtaa alxamdulillah rabbil aalamiin. laba shay ba anaga waan ka waayne labada shay maxay tahay waay haddana waxaan maqlooyaa nin Sulaymaan Hussein wuxuu soo dhigay nin jareer ayaa lagu dilay shalay Soomaaliya kaliya lama rabo Sulaymaan magaalada lagu dilay ninkaasayto iyo sababta loo dilayna dadweynaha waa la wadaagi kartaa. waayo Facebookeyga dad badan baa ku jira oo maanta Soomaali jileec ha noqoto Soomaali jareer ha noqoto kulli way ka buuxaan. ma mid hadda lisku dacayadeynayna ma aha. wixii jira haddaad sheegtidna cid maanta adiga wax kuu qaban karto ama kale ku eedeyn karto ma jirto. marka waxaan rabnaa insha Allah biidnillaahi kariim annaga haddaan nahay Saleeba anaa ku soo qabanaa wax yar. annaga haddaan nahay Somali Bantu ilayn Soomaaliya laba qolo unbaa degta. isqaadqaadka iyo waxaasayta waa khiyaano. Soomaaliya laba qolo unbaa degta. labada qolo degtana waxaa waay Soomaali jileec iyo Soomaali jareer. okay Soomaali jareer waa la soo kuusay waxaa lagu dhashay jareer weyne ayagana waa iska aqbaleen. waxaasna waxaa sameeyay hogaamiye kooxeed Soomaali jareer weyne. tinta qabiil ma noqonayso
ayagaba lama dhihin soomaali jilac weyne lama dhihin ilaah markii laga cabsanayo intaas waa khayaano waayahay isugde waa soo qabanaa saleebaan waa soo qabanaa suga idinka weligaa in anaga degdegsiiyan wax ka noogu dhammaada marka waxaa waaye aniga marka waxaan rabaa soomaalidan kale sababta ay ku heshay arrimahanayto safiir ay ku helayso safiir ku xigeen qunsuliyad ilaahay ku roonaade gobolka banaadir oo maanta magaalo madaxdii ay tahay ya sidoo kale wax ay maanta oo soomaalidan jariirta ah oo macnaha ay ka haysato ilaahay abuurtay ma jiraan waxaas dhan waxaa waaye dadka waxay ku leeyihiin waxaan rabnaa in dowlad aan helno wallaahi billaahi tallaahi dowlad ma helaysaan sidaa unbaa isku dilaysaan ya waxaad leedihiin majmaca culummada soomaaliyeed culumma waxaan dhahnaa anaga culummo allah ayaan dhahnaa culummada waa culummo ilaah waay waayahay culummadii ilaah marka haddii horteeda wax lagu samaynayo ay hadlaynin laakiin markii tolkeeda tinjileec markii wax ku dhacaan ay hadlayso abaar hadday ku dhacdo way hadlaysaa haddii ay isdilaan dagaalka joojiyay leeyihiin laakiin jareer haddii la dilayo ma hadasho culummada soomaalida majmaca culummada soomaalida ma hadlo haddaba anaga waxaan u baahannahay inaan helno wixii aan xaqa u lahayn kaasoo ka mid ah safiir xariga dheegiikan walaalay safiir inaan helno kow inaan helno tan labaadna inaan helno gobolka banaadir aan ka helno ya inaan gobolka banaadir aan ka helno wax la yiraahdo gudoomiye degmo gobol maba noo quuraysaane inaan gudoomiye degmo aan helno ayaan u baahannahay marka alxamdulilah rabbilcaalamiin laakiinse waxaasiito degmada iyo waxaas ay noo dambeeyaan hadda waxa aan ka hadlayno wax kale ma ahan arrintan ha laga hadlo marka saleebaan haddaan ku soo qabanayaa insha allah naciimo marka alxamdulilah rabbilcaalamiin waraa naciimo yurub xarigaas ma ku jira ii fiiriba si fiican u geli marka alxamdulilah rabbilcaalamiin soo gala waana sheergareeya war soomaali baantuu ma yara waad badan tihiin insha allah biidni illaahi kariim waad badan tihiin marka soo gala hadda kolleyba reer north america been waaye haddiiba idinka afaariin ama dantiina aad ka hadlaysaan ya maanta waxaad joogtaan xilli fiican ayaan idin soo galay xilligii aad nasanaysaan xilligii aad jiifka ka soo kacdeen warnimayo xaqiina dhacsada annaga waxaan rabnaa hataa nin qunsul haddii keliya naloo magacaabo oo maanta waxaad kan bahalkan la yiraahdo maraykanka annaga faa'iiday noo tahay dadkaana haddaad aamusid waxba kuuma ogola adoo hadlaysaan waxba kuu ogoleen warya hadla wixii xamar joogow soo gala wixii kismaayo jooga soo gala hadla koonfur afrika soo gala inta qaxooti yurubta soo gala hadla buuxiya sheergareeya laaygareeya maxaa dhacay haddana ma idinkoo dibadaha jooga ayaa afkiina xiran yahay walaalayaal aniga oo xanuunsanba waa idinla hadlooya waa kane insha allah waa idinla hadlooya waxaan rajayn doonaa inaad soo wada gashaan marka waxaan idin rajaynaa inaad soo geli doontaan alxamdulilah rabbilcaalamiin insha allah biidni illaahi kariim ujeeddadu waxay tahay soomaali baantuu maxaa loo siin layahay wax la yiraahdo safiir ama qunsuliyad
awga ama qunsuliyad maxaa loo siin layahay oo madax ah ya adeer waa ku salaamay intii dhimatayna ilaahay ha u naxariisto aamiin ya allah marka sidaa ma ahan hala soo galo intii dhimatay ilaaha u naxariisto inta noolna raaxa inay heshaan u baahannahay inay raaxa hesho ayaan u baahannahay saleebaan ii soo bixinta inay raaxa hesho ayaan u baahannahay raaxa ma haysano annaga raaxa ma haysano سليمان سليمان حسين markii anaga raaxa ma haysano raaxan u baahannahay insha allah biidnillaahi السلام عليكم. calaykum salaam saleebaan haye نود والله عافماتك هوربل. abboosto laki waayiba beryahaniyo ها وحوي بريهان واسكا شغل دحان كجري مكستادي. haye وحوي دود لين كجرني هذا واحد باميل نوكره واحد ويل دحبين نو جوغان هذا اسكا واحد وحوي هذا دبدين علاys way مكستادي. أنا عروران كنا هاي beentaa maaha مركوا دب مال واددالينا إن شاء الله إلى يقرب كان الله قالوا. aamiin ya allah aamiin ya allah marka online aku jirtay ayaan arkay marka ana online rabbi inaan soo galo marka waxa waa in kasta oo fursadda ay ugu yar tahay marka waxaan dhahay xayuu baa ku jiray marka wixii friend ah u sheeg marka kulay waxa waa dhibaatada aad ay nagu soo badatay anaga jariir weyn ahaan marka waxa aad iyo aad dhibaatadeena u soo badatay dilkeen waa soo batay waqti walba waana la dilaa marka dhibaatadaas jirta ma gasta marka shalay ayaa waqti anaga oo habeen qabnay oo Soomaaliya maalin ay qabeen subax waqti subax ayagana ay qabeen ayaa nin oo jariir weyna ah oo makaanika ah oo mootis iska wato ayaa saddex xabal ugu dhuftay ma gasta haye waa ciidamada dawladda ana dishay sababtay u dishayna waxa waay gurigiisu ka soo tagay quraacu cunay shaqadu u soo ordaayay mootidiisu soo qaatay wuxuu dhahay quraacda iyo hal isii uu dhahay quraacdii uu rooror ku cunay la dhahay quraacdii markuu soo cunay wuu soo orday mootidiisu soo qaatay markii meeshii oo ciidamada joogeen oo checking point la dhahay oo lisba baaray markuu amaaday oo la baaray min ciidana soo booday wuxuu dhahay war meel hebelan rawaay ee igey haye حق أم السعودية أنا شقة كداها شقة أسعودة جراش كي أردايا ميش أم اللابن هاي ميش أم السعودية منو كجيناي إيوا إجينيسا هم موتدي أنا أسكالها كم جيناي إيوا إجينيسا كم جيناي يصد حبة لما حبة وحا واي ما ضحى أوقفتين هل حبة نقربك أنت أوقفتين haye أفجوي وأنا أفجوي مرك أنا شقة كجرا يا يركي أو أسق أبتو هاي تلفون يسوق لي Facebook soo galay marka aan shaqadan ku jiray telefoon markaas ma qaban karin Facebook markaas ma ka jawaab karbaay shaqo ma ku jiraa telefoon gaari ku jiray waag markuu bariyay aan waa iska soo baxay telefoonkii ma baarin guriyan amaaday waa iska hurday yarku waa igu soo celceliyay kadib mar aan kaado u soo kacay anaan telefoonkiisa arkay waxaan dhaysay oo kale Axmed maanta isoo wacay Facebook leen iska baranay ilaa ku iyo leen oo WhatsApp aan iska wada hadla jirnay aan group oo WhatsApp noo furdaa waa u galay wuxuu dhahay marka tigay hadda la dilay shalay la dilay hadda soo dugnay waa baxnay u dhahay saldhigiyaan tagnay ninkii rabnaan dhahnay waxay dhaheen anaga ma garanay ninkii dilay ee waa keenaysin way markii mudaharaadan suubinay lugaan gubnay u dhahay baaburaha oo meesh ciidamada yaayeen aan jijabinay markaas hadda way dhankaas oo dhanka sheego waa ciidan ay noo soo direen marka ciidankii walna ma soo gaarin marka hadeerta waxay dhaheen marka ninkii waa ladin keenaa marka meedkiina duugta hadda meedkii haddan duugnay marka ninkiina weli nooma keenin ciidamadiina welina ma soo gaarin saanay u dheh waayahay kolley waa la maqloyaa inta meesha ku jirta waa maqloysaan ilaaha ka cabsada ninkaas wuxuu sheegaya waad maqloysiin wax sax ayuu ku hadlooyaa saan u rajaynayo marka waxaad yeelaysaan sheergareeya sida oo macnaha dadkaasay tohtaa afrikada ya midii kale raba ana inaan sheego ciidamada dawladda waaye laakiin ha ahaato waa laba qabiil oo isku dhex jiro waaye labada qabiilna kulli inaan qabiil la sheego waa lagu qasbin yahay waayo
qabiilaa dilay waa habar gidir iyo murunsade oo isku dhex jiraan waay waa qabiil ninkii habar gidir inuu yahay laga yaabo ama in murunsadu yahay laga yaabo ninkii dilay kule ninkii dil waa inay soo saaraan waa la ogaan doonaa laakiinse checkpointigii habar gidir iyo murursadaa joogaan ahey habar gidir iyo murunsada ayaa joogay laakiin xabadda ninka ku dhuftay ayagaa iska soo saarayaan ayagaa iska soo saaraya haa hadda xaaladdu way xun tahay waxaa la soo saara iyo ayagaa isku dhex maqan hadda waana afgooye afgooye way afgooye waa maqlaysaan kolley dhalinyaro inta meesha ku jirto kolley adiga nabadoon ninka lagu yidhaahdo ku soo qaban maayo waxba anay adig noomaba dhexeeyaanba ku soo qaban maayo raalli iga ahaw alxaasil saleebaanow insha allah biidnillaahi kariim arrintaanayto dadku waa maqlooyin kolley waa sheergaraynooyin waa la maqli doonaa fadhina waa ka yeelan doonaa insha allah biidnillaahi kariim laakiin mawduucayna ayaa gudagelayna kanna mar kasto aan hawshu wado ayadana waan soo dhex gelina insha allah khayran kuu rajaynayaa marka adigana danahaaga raadso tan waa la wada arkay insha allah waa hadee waa ku salaamaya assalaamu calaykum calaykum salaam kolley waad maqlaysiin dhalinyaroy insha allah biidnillaahi kariim waxaa waaye annaga dad inaan dhibno uguma talagelin waad maqlaysaan dadkii hadda dowladda isku sheegayo afgooye checkpointi ay leeyihiin ninkaas si sax ayuu u hadlay anig murursadina ma dhahayo ku dhahay habadda habar gidirna ma dhahayo laakiinse meesha badda waxaa waaye habar gidir iyo murursadaa joogaan checkpointigaas ayagaana habadda ku dhufteen hantidiisi darteedaana loogu dhuftay waayo dhe hantidaada igu caawi iyo aniga hadda kuma caawin karee meelan u socdaa intaasaa ninkii lagu dilay oo carruurtiisii u ordayay inuu u soo shaqaysto markaas ma dowlad baa marka taas aniga dowlad uma aqaan dadka meesha ka qaqaylinaya dowladaa jirta iyo dowladaa kan ah dowladda ha la sugo iyo war wax la sugaya ilaahay abuurta ma jiraan meesha qowlaysataa jirta dad maanta heshiiyey ayaa jira dad maanta maraykanka iyo maxaa la dhihi jiray yurub sheegagii ay qaadan jireen ka yaraaday oo ay yidhaahdeen war meesha wax ka sameeya dadkiina una wax u sameeya ayaa meesha joogaan haddii oo maanta ay joogeen dad oo rasmi ah ummad u dadaalayso war haddii wax lasoo afjari rabo isla markii waa lasoo afjara haddii ayaga soo afjari waayaanna culummadaaba soo afjari kartaa waayo waxaa la yidhi majmac culummada soomaaliyeed wax la yidhaahdaa jiraa waxay ka degayeen aan arkayay maxaa la dhihi jiray galgaduud dhuusamareeb marka majmacaasayto meesha joogay sheekh nuur baaruud iyo kolleyba xamar iyo afgooye ma kala dheera xamar gudaheeda cidda lagu dulminayo soomaali baantuu way arkooyin afgooye way arkooyin balcad way arkooyin majmaca culummada soomaaliyeedna way sheeganoyin culummada soomaaliyeed dhanna inay madax u yihiin ay sheeganoyin maxay wax uga qaban la'yihiin laakiin soomaali jile hadda markii wax yar la yeedho way kacayaan wax kastay samaynayaan abaar hadday dhacdo way ordayaan haddii dil dhaco waa dilkaasayto waa loo orda laakiinse masaakimiintan cid u ordayso ilaahay abuurtay ma jiraan saasna muslimnima ma ahan saas muslimnima ma ahan haddaba aqligooda bal fiiri annaga iyo jilecdaba culummadaas unbaa na xukunta marka maxaa la rabay markay arkaan meelaha qaar oo ummaddan ay ka maqan yihiin oo maantadaanayto oo waxba laga siin la'ayay maamulka dowladda inay ayaga yidhaahdaan war sidaanayto dulmi waaye sidaan halaag waaye diinta islaamka ma ogola nin walba saamiga uu leeyahay hala siiyo meesha ayaga ka doodi lahaayeen oo qolada dowladda isku sheegaya
wax u sheegi lahaayeen ya ma galaan laakiinse waxyaalaha kale way galaan waxyaalaha kale way galaan sababta ay u gelooyin ayagaa og aniga ma dhahayo hunguriyay u gelooyin ma dhahayo jinay u gelooyin ma dhahayo laakiinse dhibaatada soomaali bantu haysato dadkaas kama hadlaan waxay uga hadli waayeenna kaas ayagaa jirta marka annaga haddaan nahay soomaali bantu maanta afkeyga soomaali bantu kama baxayo annaga haddaan nahay soomaali bantu waxaan u baahannahay igada kaas kan igada haddaa kan eda waa nin oo wax kale wato waay marka insha allah biidnillaahi kariim ninka oo si xun u hadlayo adig waxaad rabta iska dhe laakiin anig kuma soo qabanayo cidda maanta anaga dan noo isku kaaya jirto ama kale cidda maanta oo maanta masaakimiintaanayto dhibka lagu haya u danqanayso ayaan soo qabanaya anaga meeshan talo ayaan dadweynaha soomaaliyeed iyo soomaali bantuuba ayaan u soo bandhignay taladaas oo ah dowlad kasta soomaaliya laga sameeyo maxay dadkaanayto hataa hal nin oo safiir ah ama hal nin oo qunsul ah maxay u heli la'yihiin soomaali bantuuda ma soomaali ma ahan miya ilan soomaaliya cid kale ma degto soomaali jareer iyo soomaali jilec unbaa degtaa maxaa ayaga dadkan soomaali jilecdan oo keliya ku koobay safaaradaha dibadda hadda meel aad tagtid maanta oo haddii dhib kugu dhaco aad doodaysid ilaahay abuurtay ma jiro waayo meel kasta ayagaa joogaan ya meel kasta soomaali jileca joogta haddii ninkaasayto adiga wax ku yeelo aad tagtid hataa iridka lagaama furay iridka lagaama furay iridka marka maxaad samaynaysiin hurdada maxay idin taraysaa soomaali bantuye ya maxaa yaad sugaysiin ma bahalkii kale dadku sugaysiin maxaa la dhihi jira cirka war cirka dad idinkama imaanayo ilaahayna marka ilaahay waxaas ku siiyey caqliguu ku siiyey wax kastuu ku siiyey aad ku wax garatid adiga xayawaanka aqli la'aanta ee ma tihid laakiin haddaad iska dhigtid xayawaanka aqli la'aanta haddaad iska dhigtidna waad noqonaysaa qofku wax kastoo isagaa iska dhigaa xayawaanka aqli la'aanta haddaad iska dhigtaan soomaali bantuey waad noqonaysaan waayo dantiina ma garataan idinkaa isku jeedaan aw heblow maxaas ahaay kan maxaas ahaay war waxaad arkaysaa wax micna laheenaad isku haysatiin hebel wax ma noo noqonayo hebel wax ma noo noqonayo hebel wax ma noo noqonayo hadda haddaan aniga aan idhaahdo wardadow miyahaa anaa isku soo hilqaamay howshaanayto aan galno waxaa liileeyahay madaxtinimas rabaa madaxtinimo ayuu rabaa liileeyahay asagana waa aamusan yahay waxba ma soo jeedinayo locdaas meeshaas fadhido waay locdaas meeshaas fadhido waay macnaha wuxuu la mid ahaana lo aad oos u keentay oo cuntay haddana lo'od markay dherigta haraanti kugu dhufanayso sidaana ma fiicna walaalkaaga ra'yi fiican hadduu keeno ra'yigaas ku raac adiga haddii ilaahay ku gelin waaye ra'yigaasayto ilaaha ku gelin waaye ilaah isagaa geliye ilaah hadduu isaga geliyeyna dee adigana waa ku galay markuu wax kuu soo dhiciyo laakiinse anigana wax ma soo dhicinayo adna waxna iima soo dhicinaysid sheekadii maxaa la dhihi jiray gabadhii la dhihi jiray maxaa la dhihi jiray saada cali ya aan kuu taliyo iima talinaysid aan tashan mayno haddee kaas amal lama fiicna marka waxaa weeyaan adeerayaal
adeerayaal ina abtiyaal ina awoowayaal waxaad yeelaysaan dantiina garta war kii baadiye ka yimid qaar hadda inta ka hadlaya oo aan arkoy oo kale baadiyay ka yimaadeen ninka reer magaalka ah arrin asaga khuseynin shaqaba ma faragashanayo laakiin mida had inta aan arkoya oo qabiilnimada oo aad ugu fogaatay oo isku dhigay nabadoon ya waa caqli basiid uu leeyahay caqli yar uu leeyahay waayo dhe ummaddan dhan isku ra'i waaye asaga ra'yigiisu wuu gedisan yahay maxaa la rabay inuu bannaanka iskaga baxo haddiiba hadalka asaga dhibayo inuu bannaanka iskaga baxo kolleyba hadduu hadalka dhibayna inuu asaga taabtaan u malayna qowmiyadiisa ama reerkiisa in adiga ra'yigaaga aniga ma rabo ra'yi i dhibayo iga tag marka waxaad doontid ahaaway ra'yigaaga diyaar uma ihi walaalow haddaad isaga jiraysana iskaga jir ilaan waxaanayto facebook waaye laakiin aniga kuma soo qabanayo ha igu daalin okay bilawday marka waa kaasayto kolleyba hadal waa ku soo asalaamu calaykum calaykum salaam ay sheekh waa ku salaamay marka koowaad waana ka xumahay hadallada yar aa isdha dhaafsanay waa ka haraal gelinaya ma garata haye marka waxa meeshii alaa waxay tahay haddaana anaga reer maraykan ama america ku dhaqan soomaali baantuuga horta soomaali waxay tidaahaa hadal badan ahaan ma buuxso ma garata haye maanta waa og tahay reerka ay gaarintay majaleec ama soomaalida kale markii loo eego xagga siyaasadda maraykanka ama soomaaliya adiga maba lagu arkoy maxaa dhahay waana north america waa maaline ana waa jiifaa sariirtan jiifaa haddii kale waa iskaa tusaa diirta inaad dadka ku arkaana ka fiican ma ogsoontahay ila ra'y baad dhiibanoysaaye ra'y mugdi ma fiicna okay janis haddaa soo baxa waa ku siinaa janis aye dadkaa ku arkaan kolley ninkaanaan macnaha ra'yigiisii aan tijaabinaynaa kolley insha allah biidni illaahi kariim meeshana wax kalena ma ahan soomaaliya laba qolo unbaad degtaa soomaali bantuu iyo soomaali jileec marka maxaa soomaalidan bantuuda la leeyahay maxaa xukuumadda soomaaliya laga dhisayo iyo waxa dibadaha ay u dirsanayaan safiir ha noqdo maxaa la dhihi jiray ambasador ha noqdo maxaa loo waayay jawaabtaas unbaan kaa rabaa adeer jawaabtaas iga soo jawaab horta adeerow waxaa loo baahan yahay wax la yiraahdo dhaqaaq in la sameeyo ma garatay saa hore kugu sheegay hadalna wax ma taraayo gartay fahantay gartay dhaqaaqa wuxuu u baahan yahay in meelaha oo dadka ay wax ka raadiyaan ama xuquuqda aadamaha u doodaan oo kale la tago ma garatay haye ay rag loo baabi'inina wax soconay ma aha yani wax waqti la geliyo u baahan tahay gartay ma garatay gartay maanta maraykan waxaan ku joognaa inaan soomaali nahay ayuu noo soo aqoonsaday gartay ma garatay gartay qof walbana process oo ku yimid maraykanka dhibaata igu soo dhacday soomaali bantu aan ahay waa liisoo dhibaatay waa liisoo tikooray dhibaatadii lagugu soo sameeyey ee maraykanka ah ku soo gashay oo asiga diiwaanka kuu geliyey
white house inaad tagtid waraaqad inaad ku qortid waa tagi kartaa waa dhigi kartaa mudnaanta soomaali aan ku lahay maanta malihi dhibaatadii oo aniga aan ka soo cararay weli umadeedii haysataa oo ku nool wadankii ma garatay marka maanta xilwaanad ay haystaan dadkan oo timo jalacda ah Minnesota ilhaan cumar ka mid ah Soomaali baamtuuna 15,000 way ku nooshaa Mareykanka ama 15 sano aye ma garatay marka ummadan waxay u baahan yihiin wax la yiraaho inay is awaawulaan ee ummad hooshooda u dhumiyaan waxaan ciyaar ma waa siyaasad in la daba taagnaado u baahan tahay dadkan waxa waaye dad oo calooshooda ka dhamaan la ayinba inay iska cunaan iska saxdaan sida xeeryaanka oo kale sida aad u sheegtay aqliga ilaahay wuxuu noo siiyay inaan ku fikirno aan wax ku qabano ma garatay lacagna waa loo baahan yahay lacag la'aan wax anfacaysa ma dadka hooshaas galay waxa loo baahan yahay in oo la garab istaago hiil iyo hoob gartay marka Soomaaliyeantu waa hurdada ka kacaan ana hadallada aan soo qorayo commentiga oo macnaha oo meesha taawana iyo dib ka sameeynay waxa rabaa dadkayga inaan isbiirad geliyo kale ma inay xumaan iyo qabyaalad igama aha maya laakiin adiga waxaad ku gafaysaa hadda wajigaaga toos waa loo arkoyaa magacaagana waa la fahmi karaa anigaba waan ilaahdaa maxaa way cunaan way seexdaan dooro baktiyay digaagad bakti oo meeqaa sana la dhuunsiibay ayay cuneen carabkooda sidaas ku adkaaday oo guryooda iska joogaan qaarna hadday rabaan hilibka doonfaarkayba cunaanba marka waxaa waay nin sidaas damiirkiisa saas u dhintay ma laga yaaba inuu ordo dad badan aniga aan ogahay markaan joognay awbaraan ka soo baxay aniga mutacallimiin ahaayeen oo xag isku kaaya jeesjeesi jireen oo maanta annaga nala dhihi jiray wax ma taqaanin ayaga noo ordi jireen hadda waa la la'yahay maraykanna way joogaan waana la la'yahay arrimo noocaasaa jiraan ilmihiisa ayuu ka dhammaan la'yahay marka waxaa waaye nin walba inta yar uu yaqaano oo maanta walaalihiisa ku caawinka hadda waad maqlaysay maxaa la dhihi jiray beledkan la yiraahdo afgooye nin mootadiisa iska wata oo ilmihiisa u ordayo raashin u doonanayo ilaa iqaad iyo kuma qaadi kara aniga meelan u ordooya ayaa xabad loogu dhuftay marka heerkaasay arrinta taagan tahay maxaa in loo adkaysto dhibku loo adkaysto dulmiga horta ay soo adeer horta dulmiga horta adoo hadda iska kicinin oo adiga aad iska qaban cid ka qabanaysa male ma garatay taas waa jirtaa jareerna ma yara jareer waxa waaye qabaa'ilada Soomaaliya inta la facda hawiye ilaa idaarood isaaq kul isku dar jareer wala facaya hadii qabiil xataa la soo xisaab dawaaba ku sheego laba le degtan ku dhay laba bes jareer iyo jilaa way Soomaali kale ma jirto marka hadda sidoo kale waxa loo baahan yahay in awaawul la sameeyo oo sida dulmigaas oo qofka hadii adiga aad nin xanuunsaday la baxay ma garatay sax way dadkan isku xirnaashada ka maqan waxa waa qofka hadii adiga oo wax ka taabto ama wax ka dilo kismaaya hadoo wax ku dilo joor in looga aaro hadii joor wax ku dilo in wax looga aaro baladweyne ma garatay taas inuu sameeyo waa jirar isku xirka ka maqan ninka hadoo ku taabto dawladda hadda jirta waxa waaye tan dawlad hadda jirta ay dhiin aniga dawlad ma aqaano inta dawlad waa ileedayna meeshan ha soo gasho dawladnimo waxay tahay anaa u sheegaa dawladtan ma ahan dawlad qabiil waay dawlad qabiil tinjile waay maahintan dawlad oo maanta Soomaali dhan u wada dhan tahay ma ahan marka adeer dadkii kalan soo qabana marka adna waa kaasayto wixii oo ra'yi kale ana waa kan waanayna sheer garee هيا اوكي خير اكون رجينا ان شاء الله اكو دير هذه ماركيزو الو السلام عليكم سو قال عدي رأي قبطو او مانتا او سومالي بانتو رأي قاسيتو وح اتريو او وضطو وإني سو قشاء
waryahoy dumarkii ayaa tala dhiibanoya waad aragteen gabar ah ayaa Minnesota maanta xildhibaan ay ka noqotay oo Soomaali jilicdan ah qaarkiinaba laga yaaba inay odeeyayba ilaa Minnesota waa degantihiin idinka kaale ilaa iyo 60kii ilaa iyo hadda ma dad baad u odeynaysaa ya codkiina ma dhiiban kartaan miya xagga ka soo baxad codkiina intaadba ka dhiiban la'diine maxaad tihiin marka waa nala dhacay iyo jinni maxaad u leedihiin ya kan oo Facebook ah ayaa codkiina dhiiban la'diin xamar joog kismaayo joog jehel soonfur Afrika joog maxaa codkiina u dhiiban la'diin ya war ilaaha iska leh dil ilaaha iska leh deysmana ilaaha iska leh ya war wax allaale wixii ilaahay kuu soo qoray waad maraysaa cid kaa celin karta ilaaha abuurtay ma jiraan marka inaad idinka wax noqotaan haddaad rabtaan dilka ogolaada waxbarashada ogolaada ya Halo, assalamualaikum. عليكم السلام محمد عمر Ayaa adeer ii waran. adeer nabad waay Alxamdulillaah waa ku fiicanahay maasha Allah. Barnaamijka iyo qeex bal. barnaamijka adeer wax kale ma ahe aniga waxaa waay Soomaaliya waxaa degtaa laba qowmiyadood oo keliya degta jila iyo jareera degta haddana xukunkii dhanba waxaa boobay qoladan jilicda la leeyahay waayahay anaga maxaan u waaynay maadaama dowladdan la sheegayo dalka ay ka dhisan tahay anaga maxaan u waaynay hataa konsuliyad maxaan u waaynay oo madax ninka ah Soomaali Bantu ah ama kale maxaan u waaynay baalkii kale la dhihi jiray ambassador maxaan u waaynay taasa muhiimada ugu weyn taasa ah iyo midda kale degmooyinka xamar maxaa nin Soomaali Bantu ajaga looga siin waayo oo maanta ayaga boondheere wabiigle jinni balaay oo dhan ay degan yihiin ilaa Madiino Waa gartay. waa intaas waxaad horta siinaysaa tan oo dibadda ambassador la'aanta konsuliyad la'aanta oo maanta meeshaan tagnaba Soomaali jile una hortaagan yihiin ya taas macnaha waxaad ka dhihi lahayd taas u horeysiin horta lambar 1 horta adaa is yeelay kow gartay mid ugu horeysa horta anaga is yeelnay sababtoo waxaan isu yeelnay horta haddii aan kala socono waa dhimanaynaa nin walba meel luuqas ku dhimana mana ka warhayni gartay laakiin haddii aan nahay dad midaysan oo hal meel ka soo wada jeedo oo isfahansan oo nin walba xanuunkiisa iyo dhibkiisa iyo meesha laga haayo oo dareemaya haddii aan wada noqono dhammaanteena iska warhayno macnaa qofkii la dilan hal mar la isla qeelsho meeshaas macnaa dadkan waa isku xiran yihiin oo la dulminna la leeyahay maanta haddii nin habar gidir haddii maanta suuqa lagu dilo maxaa la leeyahay meeshaan nin habar gidir lagu diliyo naga kala roorsiya la leeyahay gartay laakiin nin jareer markii meesha lagu dilo ina dadkiisu soo hiili rabina la ogyahay oo dagaalami rabin ba macnaa jareer la diliyo caado iska yaala iska dhaha dil rabo gartay taasna wax koos gareey macnaha anaga waay anaga dhaxdeen israbin maanta haddii koo oo lacag yeeshto kan kalenta faqiirka ama kasaayabo naagas ku aqliya gartay marka muhiimadeena anaga hadda waxay tahay 28 sano waa nool soo dilay waa nool dhacay wixii rabaa nagu la sameynay ilaa hadda 28 kala hadii hadan aan ku darsaneyno iyo hadii aan xanuunka ka seena taas horta waxay u taalaa dhalinyarada gartay midda kale Cabdullaahi Colaada loola hadlay waxa la yiri macnaha dhalinyaro noo qor oo ciidanimada ee qoranayso oo saas rabnaa maxaa dhalinyaro u qori waayay la yiri wuxuu yiri guriga ma inaan u galo ma soo ka kicinaa inaan guriga u galo ma soo ka kicinaa hadii asaga ninka Cabdullaahi Colaad waxa waa moogtaa wasiir ku xigeenka gaashaandhigga waay waarun waa
macnaha markii aan warbixin u gudbinay oo dhaananiyo saanay wax u jiraan ciidannimada wixii la rabaa markii aan dhaan wuxuu yiri aniga jareer inaan luuq ugu galo maan soo kicinaa guriga ma ula galaan le soo baxniyo soo bax ma dhigi kariyo yiri wax isku xiran hayay imaadaan aan u diido markaas aan leedacayo yiri waa sax runtiis way maxaa ha marka dad xaqiiqda kaaga hadlo maanta macnaha dadkeena ay madaxdeena wax la xisaabtama male waxaan diyaar u noqonay inaan cunugii nagala xiro oo abukaato oo $1,000 abukaato oo lacag aan siino oo halo ha marka inaan marka abukaato aan qabsano gartay inaan abukaato oo tinjale aan qabsano oo soo dacwoodo oo $2,000 on siin on jeebkooda u buuxina aan raali aan ka noqoni gartay meeshii inaan ciidanka aan ku biiri lahayn oo cadowga iska dhici lahayn oo ninkii naga la xira xataa oo dhuga aan soo baxsan lahayn oo annaga naf ahaanteena waxaan ka door bidnay inaan macnaha bulshada aan galno adi camal lagu soo waco lagu yiraahdo niyo nima abukaato loo qabanayo $50 keen adi lagu dhaho kan kala dhibo koo kasta la iska dhibo oo dhibaato ma dhamaatay lagu dhex jiro ninkii la rabana la iska masbito marka dhibaatadan waa in la helo dhalinyaro la xisaabtan dhab ah la sameeyaan dadka madaxda oo maanta walaxaan metelnaa dhaha haddii aanan la helin rag la xisaabtamo madaxdaas oo isku xiran oo dhalinyaro oo ilaa boqol haddii laisku helo la helo wuxuu leeyahay waa lagu daba joogaayo uu leeyahay wax hadda waxuusan qaadan waxa annaga aan rabin hadduu iska qaadana laakiin wax isku xiran markuu arko wuu soo diidaa wuxuu leeyahay dadaa iga dambeeyo adeer maanta khadkaaga ma fiicna haye bal insha allah marka khayran ku rajeeyadkaadu wuu xun yahay mar kale ka badan dhib ma lahan marka insha allah saas waaye marka barnaamijkan intaan soo sheeg waa haye okay waayahay kolley waa maqlaysi ninka hooga codkiisa gogo'ayay marka dad nin baa yiri dadka oo dibadda jooga diyaasbaraha ayaa arrintaasayto xaggooda ka jiiftaa annaga haddaan nahay macnaha dadka dalka joogay diyaaraan nahay waayahay soo gal adeer isoo qabo dheh ra'yigaaga dhiibo qoraal keliya ha ku ekaanin soo gal ra'yigaaga dhiibo ra'yigaaga dhiibo markaasayto insha allah biidni illaahi kariim kolleyba waa la khayra dhibaatadan ilaaha dadka qaadi karaa run waay laakiin dadaal baa la rabaa in la dadaalo haddaanan la dadaalin waxba ma suurtagelayo dadkanba waad og tihiin dowladdan hadda la sheegayo badankeeda dibadda unbaa laga soo dhisay hadda qowmiyadaha etoobiya waxay hadda fadhiyaan maxaa la dhihi jira ingiriiskay fadhiyaan london ay fadhiyaan maxay raadinooyin waay waxay raadinooyin ayagoo meel la tilmaami karoba ay fadhiyaan qaarkood ay fadhiyaan marka haddana waxay leeyihiin dowlad baan dhisanaynaa marka waxaa way intaas dhan waa dadaal intaas dhan waa dadaal marka qofka hadduu dadaalan waayo runtii cid faraqa wax u saarayso ma jiro marka